iyadoo maalmihii ugu dambeysay hadalhaynta ugu badan ee ay isla dhex marayeen bulshada ku dhaqan gobolada Somaliland ay ahayd heshiiskii saldhigga military ee dhex maray dowladda Imaaraadka iyo dowladda Somaliland kaasi oo ay ku kala aragti duwanaayeen xisbiyada macaaridka iyo xukuumaddu ayaa mar aan mikrofoonka la dhex maray magaalada Gabiley bulshada ku dhaqan qaybaheeda kala duwan aragtida ku aadan heshiiskaasi ayaa waxay yiraahdeen sidan inaynu dowlad ilaaqaad la yeelano oo inuu dad saaxiibo noqono oo wax badan iska kaashada waa muhiim Somaliland waa faa'iido soo korodhay waxa meesha yaala dadku iyagoon heshiisba arag wixii laga dhiga maaha wax fowda wala naqabsanaya oo Soomaaliya loo geenaya Soomaaliya laga saxay waxaas war ma dowladda Somaliland weeyaan halkani Somaliland bani heshiis la gali karaan Somaliland baan u ogolaan kartaa Somaliland baan ka saari kartaa ta kale waxaan ku dhiiri gelinaa in la keeno wax la wixii wadanka u dana oo dowladda uga wakiila xukuumadii ay doorteen ay u idmadeen inay dalka ay hogaamiso taasay dadku ku kalsoon yihiin waana ku kalsoonahay waxaan u sheegayaa bulshada waana ku hambalyeynaa oo ku soo dhaweynaa hadii uu dib keenayana golayaal baa jiro oo maxay ahayd xukuumad baa jirta haduu dib keenayo laakiin dalka iyo dadkaba xukuumad baa ka mas'uula hadii horumar la gaarsiinayo cidda saxiixa la galaysa waa xukuumadda labada gole arrintaas horta hadii ay saxiix waayaan maanta baaba iyo dhibaatada ka timaada iyo dhulka dhaqaale xumada ka yimaada iyaga ka mas'uul dawladda waxa leeyahay go'aanka aad gaadhay oo lagu taageersanahay waxaan leeyahay ha ka noqonina taa iyo kuwa kale keena ilaa iyo dekedaha kala sidaas loo qabto si dhaqaale loo soo galo wata xoolaheenu wixii dadku waxay ma aragteen waxaad moodaymkii in laga soo horjeedo horumarka iyo waxqabadka iyo waxana hadii aan ummadda la dhex galno marba talaabo aan la qaadin wax ma aragteen horumar aynu gaar karnaa ma jirto nimankan doonay naftooda in laga laaluushi maayo wadanka horumarkaasi uu ku talaabsaday buu ku soconayaa meelahaasoo laga qalqaliyo miidiyahan iyo waxaan wax shaqaynaya maaha wadanka dad baa loo doortay madaxweynuhu wadanku leeyahay golayaashii qaranku leeyahay wax kale oo ka shaqaynaya ma jiro waqtigii aynu ku habijabayno qoriga iyo ruwaada taa xamar ba ka socota ninka taa doonaya xamar taw ya galtaan ka qabaa waa taasi horumar noo soo kordhay waxaan u sheegayaa shacabweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland in maalgashiga iyo ciidanka la keenayo labaduba ay dalka dan u yihiin waxaan aqoonteedii aqligayga la garab taaganahay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaan shacabka u sheegaynaa madaxweyne cidda doonaysa inaan dalka la maalgashan waa cidda dharagsan annaga oo ku hadlayna afka dadka tabaalaysan waxaan u sheegaynaa madaxweyne in dalka la maalgashado ciidan military la keeno ayaanu madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda aan ku taageersanahay waanu soo dhaweynaa oo dalkiyo dadkaba soo kordhaan madaxweynahana waan ku raacsanahay aragtidayda gaar ahaan waxaan qabaa anigu arrinkaasi in Somaliland ay tahay guul lagu tago wadanka inuu ka furto safaarad fiisa baasaboorka waa inuu Somaliland laga fiiseeyo laakiin yahay arrimaha madaxweynuhu gaaray waana ku raacsanahay labada qodob waa in ay tirada koow ka tahay oo lagu jirto inoogu fiicay saldhigaas sababtoo adeer baasaboorkeeni baa Imaaraadka lagu tagay oo Somaliland hadii halkan baasaboorka uu dhaafi waayo waa mushkil wax walba inuu Somaliland martaa la ictiraafsay marka inaga way noo fiican tahay dhaqaale inaga soo galaya dad baa shaqo keenaya qaar baa turjumaanka oo kale ta keenaya waa Cabdisalaam Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley